bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha waxyaalo kale aad kaga barateen raja sportisa t v inaad ka daawataan waa maalinimo axada taariikhdana waxay ku haseysan tahay 30 bisha shanaad ee may sanada 2021 qodobada barnaamijka aad kaga bogan doontaan waxaa kamid noqonaya Manchester United waxay saynay ciyaanka Dortmund garabka kaga ciyaaray Three Lions England ee George Sancho qodobada barnaamijkaas oo kale aad ku daawan doontaan saaxiibayaal waxaa ku jiri doona Tottenham oo wada hadallo la furayna tababaroodii hore ee Mauricio Pochettino oo maamulo Paris Saint-Germain qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad kaga bogan doontaan waxaa ku jiri doona ciyaanka qadka dhexe ee reer Spain ee Dani Ceballos oo dib ugu laaftay Real Madridna shardi adag ayuu ku xiray mustaqbalkiisa Los Blancos ka ciyaanka reer Spain qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal oo kale aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya Rayo Hodgson oo shaqada Palace ka dhaqaaqayna waxaa la xiriirinayaa inuu bedelo Sam Allardyce oo ka tagay shaqada West Brom Albion qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal oo kale aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya AC Milan waxay wada hadallo kula jiraan Chelsea oo ku aadan mustaqbalka ciyaaryahanka daafaca dhexe ka ciyaaray 23 sano jirka ee Timore qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxaa ku jiri doona Arsenal ayaa Roma u sheegtay qiimaha ay ku heli karaan Switzerland ciyaaryahanka qadka dhexe kaga ciyaariyay Gunners ee Granit Xhaka qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya Manchester United ciyaaryahanka ka tirsan reer Portugal ee Diego Dalot oo ama ku qaadanaya Ross Nerina waxa uu shaaca ka qaadan inuu hubin mustaqbalkiisa xil ciyaareedka soo aadana qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel kadib markii Chelsea uu ku hogaamiyay koobka Real Europe waxa uu ka hadlay mustaqbalkiisa Stamford Bridge qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha sidoo kale saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya Kevin De Bruyne oo dhaawaca kulankii xalay looga saaray qaybtii dambe markaa oo Gabriel Jesus lagu soo bedelayna xaaladiisa ay Manchester City ka hadleen ciyaaryahanka reer Belgium ee kubadda u sameeyay Manchester City ee qaranka Belgiumka anigoo Xasan Cabdullaahi ayaa barnaamijka idin soo saar halkaan idin kala socodsiinay waan mar kale barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha ee Raja Sportisa TV intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn barnaamijka muuqaalka ciyaaraha iminkana barnaamijka oo dhameystiran ayaan guda galayna waxaan ku bilaabayaa Manchester United nadiga shahaadinta cas ee Manchester United waxay dib u soo cusboonaysiiyeen xiisa ay u qabaan ciyaaryahanka garabka ka ciyaaray ee Dortmund iyo qaranka England ee George Sancho BVB ciyaaryahanka ka tirsan ee Sancho ayaa diiradda u saarnaa xilciyaareedii ugu dambeeyay Manchester United waxaana nadiga shahaadinta cas ee Manchester United ee doonayaan in Dortmund ciyaaryahan ka tirsan oo 21 sano jira ee Premier League dib ugu soo celiyaan ciyaaryahanka hore ugu soo ciyaaray nadiga wadaaga ee ku yimid magaalada Manchester City Sancho ayay ka doorbidayaan Manchester United halkii ay u dhaqaaqi lahaayeen weeraryahanka England iyo Tottenham Harry Kane ka oo kala maamulka Tottenham ku wargelin oo doonaya inuu Tottenham Hotspur Stadium ka dhaqaaqo xilli ciyaareedka soo aadan waxaana haatan Manchester United ay diiradda saarayaan sidii Dortmund ay kala xaajoon lahaayeen suurtagalaanshaha George Sancho oo Old Trafford ku imaan kara xilli ciyaareedka soo aadan isla muraha Manchester United ayaan ku guda jirnay nadiga shahaadinta cas ee Manchester United ayaa qorshe cusub u dejiyeen ay ku soo saxiixanayaan ciyaaryahankoodii hore ee Cristiano Ronaldo 36 sano jira ka oo ka tirsan marwada doqda ee Juventus Manchester United ayaa doonayay inay ka faa'iideystaan xiisaha ee Juventus ee u qabaan ciddigoodii hore ee Paulo Pogba
kusoo laabashada shaqada naadiga Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa sare u qaaday wararka la xiriirinaya Paul Pogba inuu ku laabanayo Allianz Stadium ee magaalada Turin ee Juventus. Ana haatan Manchester United ay doonayaan in Paul Pogba ay u isticmaalaan qorshe ee Cristiano ee dib ugu soo celinayaan geeda masraxa riyada ee Old Trafford. majalada Talyaaniga laga leeyahay ee La Gazzetta dello Sport waxay ku waramaysaa in Manchester United haatan wada hadal ay la bilaabeen already oo ay ku doonayaan Cristiano iyagoo Paul Pogba u diraya Allianz Stadium ee magaalada Turin. dhinaca kaleetana Tottenham ayaa xiiseynaysa weeraryahanka reer Brazil ee Gabriel Jesus. ciyaaryahanka kulmadii ugu dambeeyay keedka diriska la noqday ee reer Brazil ee Gabriel Jesus ay doonayaan inay Tottenham Hotspur Stadium isbaaraysa ay keenaan xil ciyaareedka soo aadan. Zabarhari Kena markii oo maamulka Tottenham ku wargeliyay bixitaankiisa ku aadan seasonka soo aadana madaxweynaha Tottenham Dani Levy ayaa doonaya in bedelkiisa suuqa ay kasoo helaan waxayna ka arkoodeen Manchester City Gabriel Jesus. Tottenham madaxweynahooda Dani Levy ayaa doonaya in Gabriel Jesus ay lacag ka hela City isigoo doonaya inuu isticmaalo Zabarhari Kena oo 27 sano jira. Tottenham ayaa haystaan fursad weyn oo lacag iyo ciyaaryahan ay kaga heli karaan Manchester City marka loo eego in Sky Blue tababaraha maamula ee reer Spain oo si weyn u daneynaya inuu gacanta ku soo dhigo superstarka England iyo Tottenham Zabarhari Kena ka oo Pep doonaya inuu isticmaalo bedelka Sergio Aguero oo qandaraaskiisa Etihad oo idlaaday ka oo beec urta bisha June kaga dhaqaaqayo Manchester City. dhinaca kalena islaamuraha Tottenham ayaan ku guda jirnaaye naadiga Tottenham Hotspur ayaa la xiriireen tababarooda hore ee Mauricio Pochettino ka oo maamulo Paris Saint-Germain. Tottenham ayaa raadinaya bedelka tababariya shaqada ay ka eriyeen Jose Mourinho ka oo caga dhigtay zira dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada caasimada ee Olympico naadiga ka dhisan ee Roma. naadiga caasimada Talyaaniga ee Roma ka dhisan ee Olympico ku ciyaarta ayuu Mourinho majara u qabtay waxaana haatan ay raadinayaan Tottenham inay helaan bedelkiisa waxaana Mauricio Pochettino ay u arkaan tababaraha ku habboon shaqada Tottenham. Mauricio ayaa Tottenham ku hogaamiyay inay usoo baxaan sanadihii uu joogay koobka Real Europe booska lagu soo aadayay Champions League laakiin xilli ciyaareedkan ay booskaasi waayeen Paris iyagoo ka ciyaaraya tartanka labaad ee UEFA ee maamulaan ee Europa League. madaxweynaha Tottenham Dani Levy ayaa u arkaa Mauricio Pochettino midka kaliya ee Tottenham ku soo celi kara booskii loogu bartay naadiga Paris. dhinaca kalena ciyaaryahanka qadka dhexe reer Spain ee Dani Ceballos oo 24 sano jira ayaa Real Madrid dib ugu laabtay kadib markii laba xilli ciyaareed oo ku qarash gareeyay oo amaah waqooyiga London naadiga ka dhisan Arsenal Gunners. Daniel Ceballos oo 24 sano jira ayaa Real Madrid u sheegay inuu doonayo haddii oo Real Madrid boos joogtay oo san ka helaynin qorshaha Real Madridna oo san qayb ka ahayn Los Blancos-ka oo doonaya inay gebi ahaan ay iibiyaan. Ceballos ayaa sheegay in uusan danaynayn mar kale inuu amaah kaga baxo Santiago isigoo ciyaaryahanka u sheegay Real Madrid inuu doonayo in gebi ahaanba laga iibiyo Real Madrid haddii uusan ku jirin qorshaha Real Madrid ee xilli ciyaareedka soo aadana. dhinaca kalena tababaraha ka dhaqaaqay Crystal Palace ee Roy Hodgson ayaa lala xiriirinaya inuu shaqada ka bedelo Sam Allardyce oo ka tagay West Brom Albion. naadiga heerka labaad ee Championship ku dhaadhacday ee la yiraahdo West Brom Albion ayuu ka dhaqaaqay kadib markii uu ku fashilmay inuu ka badbaadiyo heerka labaad tababaraha weerarka ee Sam Allardyce waxaana haatan lala xiriirinaya shaqadaasi Roy Hodgson oo Palace ka dhaqaaqay. dhinaca kalena AC Milan ayaa wada hadal waxay kula jiraan Chelsea oo ay ku doonayaan in ciyaaryahanka reer England ee Fikayo Tomori oo 23 sano jira ee la galaan heshiisa joogte. Tomori oo 23 sano jira ayaa amaah ku qaatay ciyaareedkii la soo dhaafay naadiga Rossoneri ee la kaashaha dalka Talyaaniga ciyaarto wuxuuna ka caawiyay in booska labaad ee Serie A ay kaga dhameystaan. ana haatan Rossoneri ee wada hadal kula jiraan horumar labada dhinac ay ka sameeyeen Fikayo Tomori oo 23 sano jira oo Rossoneri ay doonayaan in heshiis joogto ay la galaan.
Arsenalna waxay dhanka kale u sheegeen tababaraha Roma ee dhawaangalka ee reer Portugal ee Jose Mourinho lacaga lagu heli karo ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer Switzerland ee Granit Xhaka. Xhaka oo 28 sano jir ah ayaa lala xiriirinayaa Roma iyadoo tababara Jose Mourinho oo doonayo inuu xagaaga soo aadan oo kusoo shartago Granit Xhaka. Arsenal ayaa dalbadeen 17 milyan oo lacagta giniga sterlinka oo ay ku iloobi karaan adeega Granit Xhaka oo reer Switzerland. Dhinaca kaleetana ciyaaryahanka Manchester United amaahda kaga maqan ee Diego Dalot oo reer Portugalna waxa uu shaaca ka qaaday inuusan hubin mustaqbalkiisa xilli ciyaareedka soo aadan. Dalot ayaa amaah ku qaadanaya Rossoneri oo ciyaaryahanka shaki geliyay xilli ciyaareedka soo aadan halka uu ahaan doono. Rossoneri ayaa doonaya inay Diego Dalot ee qorshahooda ku daraan seasonka soo aadan iyagoo koobka Real Europe ee Champions League oo muddo ay ka maqnaayeen. Rossoneri doonayaan inay isxoojiyaan si bandhiga sare ee tartankaasi kaga sameeyaan. Ciyaaryahankan ayaa milkiidiisa iskale Manchester United waana ciyaaryahanka haatan ku sugan yahay Rossoneri. Dhinaca kalena Chelsea ayaa loo caleemo saaray ku guuleysiga koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League taariikhdooda markii labaad. Ciyaar xiiso badan oo Porto ee dalka Portugiiska ku dhaxmartay Manchester City. Naadiga galbeedka lana ka dhisan ee Chelsea ayaa loo caleemo saaray koobka horyaalada Yurub 2020-2021 markii gool iyo waxba ee City ku garaaceen. Gool uu dhaliyay xidiga Kai Havertz Chelsea ayaa ka caawiyay in ay goolkaasi ciyaarta ku idleeyaan. Markii aan eegno rikoorooyinka kulankaasi laga soo calaamadeeyna Thiago Silva ciyaaryahanka reer Brazil ayaa noqday xidigii ugu da'da weynaa ee Chelsea u ciyaara final tartan Yurub isaga oo jira 36 sano iyo 249 maalin. Waxa uuna dhaafay rikoorkii Claudio Makelele oo dhigaya Chelsea finaalkii Champions League 2008 ay guuldarada kala kulmeen Manchester United isagoo markaasi jiray 35 sano iyo 93 maalmood. Ciyaaryahankii hore ee qadka dhexe ee Lisbon France iyo Real Madrid iyo Chelsea Claudio Makelele. Kai Havertz ayaa noqday xidigii ugu horeeyay ee gool u dhaliya Chelsea Champions League final tartan Yurub tan ilaa iyo Kai Havertz ayaa noqday xidigii ugu horeeyay ee goolkiisa ugu horeeyay ee Champions League dhaliya final ka tartanka tan ilaa iyo Ilkay Gundogan oo sidaasi sameeyay sanadkii 2013. Kai Havertz ayaa noqday xidigii ugu da'da yaraa ee reer Germany ee gool dhaliya final Champions League isaga oo jira 21 sano 352 maalin tan ilaa iyo Wigan oo sidaasi sameeyay 1997 kulan ee Borussia Dortmund and BVB la ciyaariyeen kooxda Juventus kaas oo waqtigaasi jiray 20 sano iyo 332 maalin. dhinaca kalena tababaraha reer Germany ee Chelsea Thomas Tuchel ayaa ku guuleystay koobka Real Europe ee Chelsea oo ku hogaamiyo waxa uu ka hadlay mustaqbalkiisa. Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayo in heshiisa dheeraada oo la galo Chelsea. Haatana waxaa la joogaa waqtigii ku habboonaa ayuu yiri ee aan ka hadlaynay wax ku aadan mustaqbalkayga ayuu yiri tababaraha Thomas Tuchel. waxaan haatan ka shaqeynayaa ayuu yiri inaan diyaariyo Chelsea cusub waxaana iga go'an ayuu yiri in aan kooxdan ka dhigo mid laga cabsado ayuu yiri tababaraha reer Germany ee Thomas Tuchel. Maalinka haatan maamula Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa maamulaya Chelsea 124 cisho waxaana Chelsea kula guuleystay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Chelsea tababarooda ayaana haatan doonaya in galbeedka London oo ku sii sugnaaday Stamford Bridge. guud ahaan saaxiibayaal ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha ee Raja Sports TV. anigu Xasan Cabdilaahi ee barnaamijka idiin soo saaray halkaan idinkala socodsiinayay kaamirada iyo farsamada Cabdulla Tiirka iga caawiyay. dib inta u kulmi doono amaanaal.